بسم الله الرحمن الرحيم آدي أدبن إذن سلامية وبرنامج كني تحناها أها إنه كلا هدلني هربل سولوشن أما إسكو داوينتا ديرتا إيو علمية دا إيو وحيدتك أنفعابا نوع كستا أهادين كان أنا قلت لك الله دتكو إنك فايدستان وإيك أنت فعصدان وحي المنفع له وحي المنفع له هنا أيك قد بركان آدي أدبن سلامية هدي هبين تاهبين وناكسن هدي تاهب قلبنا قلب وناكسن كسر دوادا حلقة maanta xalqadeenii imtixaan ah way ka duwan tahay maanta waxaanu ka hadlaynaa arrin ku saabsan arrin dadka social media qabsatay bariyahan dambe siiba Somaliland ama Soomaaliya guud ahaanba Asia shishana ka magaranaysa soo martay wadamada Carabta soo martay waliba Afrikada waqooyi aad ugu badnayd sida Morocco, Tunis, Mauritania, hadii ay ku roon yahay Libya, Algeria, Masr, garanaysa waxaanu ka hadlaynaa maanta arinta social media qabsatay oo ah shimbirta loo yaqaano feedmerta ama buulka feedmerta waxyaabo badan magaranaysa dad badan maskaxdooda qabsatay waliba dadka doonaya inay si degdeg ah ay u noqdaan dad hantilayaal ah oo magaranaysa milyaardeer ah oo lacag badan hela iyo xaqiiqada ku jirta buulka feedmerta iyo waxa laga helo mar waxa la leeyahay mercury gas baa laga helaa mar waxa la leeyahay maadad kale laga helaa mar waxa leeyahay magaranaysa wax laga helaa su'aalo badan oo wareeg ah oo ay dhalinyaro badan ay daba galeen oo social media qabsatay marba waxba qabsada beer dhexdaas diin iyo dad diin raadinayo oo magaranaysa diinka wax laga helaa cilmi kala ku jira beerkan hore hadana waxa jirtay mar la yiri dameeraha iyo magaranaysa caanahooda cilmiga ku jira ayaa laga helaa oo magaranaysa wax faa'iido oo daweyna laga helaa yani marba waxna waa dhab waxna waa khuraafaadka waxaan xasuustaa oo kamida arrin qabsatay Afrikada galbeed oo la yiri dadka bidaarta leh madaxooda waxa laga helaa dahab ku jira oo dad badan ay naftoodii ku waayeen nin bidaar leh oo maxaayad iska fadhiya inta budleys la daba taago ama fash madaxa la kala dhambalayay dad la xadeeyay madaxa laga goosanayay masaa'ibka ilaahay uu ilaahay naga fogeeyay waxay masaa'ibka adduunka muslimiinta haday maqlaan Allahumma najina bay yiraahdaan ma garateen marka maanta waxaan u soo noqonaynaa buulka feedmerta oo aynu ka hadlayno icnaanad badan oo ku soo baxay iyo sicirka buulka la siisto oo la yiri waxa la siistaa 10 milyan ilaa 30 milyan oo dollar iyo inaynu dadka magaranaysa ka wacyi gelino inaanay noqon magaranaysa dhibanayaal dad been iyo dajal iyo magaranaysa sir iyo lafdawaraan lacag kaga qaada ama waqtigooda kaga qaada ama ma aan loo isticmaalin inay noqdaan dad qirbaan looga dhigo wax fal iyo sixir iyo magaranaysa ku saabsan ay naftooda ku waayaan ama ay caafimaadkooda ku waayaan cudurro u soo magaranaysa jiida waxa la yiri inuu runtii inuu been tahay dib aynu ugu soo laabanayna waxa la yiri iclaanaadka ka soo galay website-ka ama social media soo galay waxa la yiri cishil magaranaysa bahalkan cishil waraaq loo yaqaano cishil khafaash ama buulka feedmerta waxa ku jira kunuus aad iyo aad u qaali ah maadada badan ayaa ku jira oo loo isticmaalo dhiiga xinjiriintiisa maadada magaranaysa xinjirta dhiiga ka baabi'iya waxa ku jira mercury gas waana maadad sida magaranaysa xabka oo kale ah oo laga helo buulka feedmerta oo loo isticmaalo falka iyo shacwadada waxa loo yaqaan sixirka waxa ku jira maadada kale oo loo isticmaalo cudurka kansarka markii la baaray waxa la ogaaday si cilmi ah oo fidsan inuu magaranaysa buulka feedmertu ay oo sida baxusta ka soo magaranaysa ka soo baxay leeyahay wax ka soo baxeen Australia inay ku jiraan enzyme
fiidmeerta wax la shaaciyay oo la yiri wuxuu ku jiraa buulka fiidmeerta iyo waxa dhabta ah aynu ogaano intaynaan u kala bixin inta uu ka kooban yahay fiidmeertu inta nooc ay tahay waxa la yiri 1300 oo nooc weeye laakiin 3 nooc baa ugu muhiima waxa weeye nooca fawaakaha cuna iyo nooca xasharaadka iyo magaranaysa iyo nooc dhiigaba marka waxaanu ka hadlaynaa mid walba waxa uu yahay iyo waxa uu ku salaysan yahay okay waxaanu ka bilaabaynaa waxyaabaha aan maskaxda gelin ee ay dadka qaarkood ku soo sawireen social media iyaga oo ka soo laalaadiyay meel waxay ku sheegeen buulka fiidmeerta oo ay xabad toon ah intay soo qaadaan ay leeyihiin toonta marka loo dhaweeyo buulka way ruxmaysaa bidix iyo midig bay tagaysaa oo ay waxaasoo ku salaysan been iyo waxaan jirin waayo su'aasha meesha taala waxa weeye horta fiidmeertu buul ma leedahay samale intaynaan horta aynaan gudagelin buul ma leedahay waa maya wax buul la yiraahdo ma laha sida ay sheegaysan buxuusta la gaaray waxay ka soo laalaadisaa meel madow oo sida godadka iyo ceelasha la magaranaysaa aan biyuhu ku jirin ay gashaa iyo buuraha godadka ku yaala ay gashaa marka buul ma samaysato inay wax khuruuj ama fadalaad ama wax ay saxara ah inay samayso oo dee ay sidaa uu magaranaysaa ay ka soo baxa ay yani wixii xaar ah ama magaranaysaa biyo ama kaadi ama ay samayso laga yaabaa waayo waxa la cadaan ah oo la og yahay cilmiyan inay baashu aanay ukun dhalin inay dhasho sida magaranaysaa in xayawaanka caadiga ah sida shimbiraha u dhalin baashani maaha shimbir waa nooc min animalka caadiga ah wax dhala weeye marka ukun ma samayso waxa jira marka dad ku ugaadhsada waliba intay miyada u baxaan ku ugaadhsada dadka magaranaysaa ay xoogaa yara isleeyihiin aqoontoodu way gaaba sameeyaan laakiin miyiga u baxaan dadka magaranaysaa dan yarta ah bay ku yiraahdaan dadkaas soo iyaguna dee magaranaysaa hadafkoodu yahay inay marka loo sheego lacag badan inay yiraahdaan wada waaba halkii aan maanta milyaneer ka noqon lahaa marka la yiraahdo buul noo keen buulkaasi wuxuu laga iibsanayaa 2 milyan 3 milyan 10 milyan baa laga siisanaya wax laga yaabo in qofku sidoo magaranaysaa godadka ugu jiro ama wax dirdiro ama marka uu isagu keeno wixii isaga loo isticmaalo oo isaga ba lagu falo oo magaranaysaa cudurro iyo wax sixira iyo wax fala magaranaysaa loo adeegsado waayo sida hadda ka muuqata ilaa xilliga aynu joogno waxa loo isticmaalaa dadka waxa daba gala ee u naadiyay rawaan iibsanina إنه ضد مقارنة عن حقيقة عن كتاجني. الغاية منه وهو أنه للسحر والشعوذة سحره من أصعب أنواع الأسحار الجنون وتشويه الجمل ثم بعضهم يبيعونه حيضة الأنتج الخفاش يبيعونها على أساس أنها زئبق أحمر. والسلام عليكم ورحمة الله. كوحا حقيقة oo aan doonaya inaan halka uga soo gudbino dadweynaha ama dadka doonaya inay wax ka fahmaan ama ay wax ka bartaan ama ay wax ka ogaadaan waxaan lagu leeyahay waa buul horta waa meel waxaan ognahay fiidmeertu in la yiri cilmiyan inay leedahay wax sida magaalada caadada oo kale ah period marka waana meel ay ku kaado waa meel najaasa ah waxa loo isticmaalaa falalka ugu xun nooca falka ugu xun sida ay wadaadadu sheegeen nooca falka ugu xun ee aan la furdaamin karin ama ay adagtay sida loo furdaamayo ama loo cilaajo ayaa loo isticmaalaa markaas darteed ayaan uga digaynaa dadweynaha inay iska ilaaliyaan wixii waxa ku shaqaysanayaan ay ka fogaadaan la soo ogaaday oo cadaatay inaanay 10 milyan iyo 100 milyan iyo 30 milyan iyo 30 dollar toon aanay ku jirin ujeedada laga leeyahay ama dadka la keenaya wax lagu waxyeeleynayo wax lagu geysanayo ama dad kale lagu waxyeeleynayo marka ilaahay naga shirtiro a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.